السلام عليكم saaxiib saaxiibka inta Ameerika soo dhawaada fininkeena maanta mahadsanidin gabadhan yara oo kaaliya tareena ayaa maalinteedii ugu horeysay shaqada ku bilaabaysa tareen caadi u muuqda kaasoo ay saaran yihiin boqolaal rakaab ah qaarkood waxay u dhoofayaan shaqo halka kuwa kalena ay isku dayayaan inay fasaxooda la qaataan dadka ay jecel yihiin laakiin 10 daqiiqo kadib markii tareenku gaadho saldhig gaar ah wax walba ayaa isbedelaya gaadhigii tareenku wuxuu noqonayaa mid ugu daxalaysay dadkiina waxay bilaabayaan inay waashaan waxaana dhacaya xasuuq dhiig badan ku daato kaaliyaha tareenka oo filaysa maalin shaqo aad u wanaagsan ayaa naxdi ka qaada waxyaabaha ay arkaysa darteed intaa kadib waxaa dibna loogu celinayaa sanadkii 1980 gabar yar oo la yidhaahdo Maysun ayaa faraxsan maadaama ay tahay maanta dhalashadeedii waxay si farxad leh u sugaysa aabaheed inuu u yimaado isagoo sida hadiyaga Maysun aabaheed tareen ayuu ka shaqeeyaa isagoo kormeeraha tareenka ah inta ay ayeedeed TV-ga hortiisa Maysun waxaa ku ciyaaraysaa tareen ay carruurtu ku ciyaaraan si kastaba haatee si degdeg ah ayay u caajisaysaa waxayna isku dayaysaa inay soo jiidato ayeedeed markii ay ayeedeed u jawaab weydo Maysun waxay ka ruuxdaa garabka laakiin jidhka ayeedeed oo aan naf lahayn ayaa si culus ugu soo dhaca tareenkii yaraa ee carruurta ku ciyaarto isagoo burburinaya telefishinka ayaan ka arkaynaa warka naxdinta leh ee ah inuu dhacay shilaad xun tareenkii keenay Maysun aabaheedna uu hadda yahay bir gubanaysa oo burburtay oo keliya waxaa markaas soo baxaysa in Maysun ayeedeed uu wadna xanuun ku dhacay kadib markii ay maqasho dhimashada wiilkeeda intaa kadib waxaana la tusayaa goobtii dhab tahay ee masiibadu ka dhacday waxaa jira laba carruur oo yaryar wiil iyo gabadh gacanta ka dhaawacan carruurtu waxay si naxdin la weegayaan meydka hooyadood taasoo ku dhimatay iyadoo isku dayaysa inay badbaadiso shilka 15 sano kadib Maysun hadda waa kaaliya tareen taasoo hadda shaqadeeda ka bilowdo tareen dadka qaar ayaa eedda dusha ka saaraya aabaheed oo kormeere ka ahaa tareenkii shilka galay si kastaba ha ahaatee Maysun way iska indhatirtaa qof kasta waxayna qabsataa shaqadeeda haddana waxaan ogaanaynaa in tareenku ka baxay saldhigga Suul isagoo ku socdaya Suul saacadu marka ay tahay 11 p.m. waxaa saaran rakaab badan laakiin kuwa ugu muhiimsan waa lamaane Haiju iyo saaxiibkeeda oo u socda bisha malabka koox kooban oo 4 dhalinyaro ah oo baadho raaxamaha iyo jinniyada iyo laba gabadh oo iskuuley ah oo hadda fasalkoodii kasoo dhuuntay tareenku wuxuu markaas baxayaa waqtigii loogu talagalay in muddo kadib lamaane ayaa soo gaadhay saldhigga xaaskuna waxay ka walwalaysaa inay dib uga dhaceen tareenkii laakiin si lama filaana saacadu markay tahay 12 waxaa soo gelaya tareen laba lamaanihiina way fulayaan markaynu dib ugu laabanno tareenkii hore kabtanka masarbaak ayaa dhawaaq sameeyey wuxuu u sheegay in markani ay tahay markii ugu dambeysay ee uu tago saldhigga Yaasu taasoo la macno ah inuu isaga iyo tareenkuba ay ka fadhiisan doonaan shaqada waxaa intaas u dheer waxaa la ogaaday in qaybo ka mid a tareenku ay leeyihiin qoloonkii laga soo qaatay tareenkii shilka galay 15 sano ka hor sababtan dadku waxay inta badan ku doodaan in tareenku yahay mid jinniye ku jiraan intaa kadib gabdhihii ciyaal iskuuleyda xasuula kaca ugu dhaceen miiska cuntada ee Maysun waxayna ka xadeen shukulaato Maysun way dareentay laakiin wax kelmad ah ma odhan taa bedelkeeda waxay aadaysaa gees waxayna bilaabaysaa inay cunto shukulaato waxa uu yimi kormeeraha tareenka Jinniyu kaasoo ku casuumay xaflad sagootina oo loo sameeyay masarbaak markii dambe labadooda iyo madaxa shaqaalaha ayaa la dabaaldegayay kabtanka waxayna ugu hambalyeynayeen hawlgalnimadiisa xafladda kadib masarbaak wuxuu ku noqday qolka kantaroolka halkaasuu si lama filaan ugu arkayo gabar taagan wadada tareenka isagoo gagaxsan wuxuu si degdeg ah u jiidayaa bareega taasoo keentay in dhammaan rakaabka ay lumiyaan dheelitirkooda laakiin markii uu degay soo hubiyey wadada tareenka ma uusan arkin qofna markaa kadib kooxda baadh ama sajecel waxyaabaha ruuxamaha iyo waxaasi waxay ka wareystaan mid kamid a rakaabka tareenka wax ku saabsan khibradiisa xagga ruuxamaha ninku wuxuu hadal ka bilaabayaa inay maanta tahay isla taariikhdii uu dhacay shilkii naxdinta lahaa ee 15 sano ka hor ninkan ayaa markaas shaac ka qaaday intan iyo dhacdadaas uu sanad kasta ku safro tareenka maalinta sanad guwada shilka sababtoo ah wuxuu waalidkiis ku waayey maalintaas nasiibada ahayd wuxuu sidoo kale u sheegay kooxda in 3 sano ka hor uu tareenka ku baxay kaniisada boorso balse uu si degdeg ah hawada ugu dhex milmay rakaabka ayaa markaas uu geeyey meeshuu ninku fadhiyey markii ay tan naqshayna Sohi oo ka mid a gabdhaha kooxda waxay dareentay waxyaalo qariib ah oo kursiga hareerihiisa ah Sohi waa qof leh xanuunka psychotic kaasoo arki kara jinniyada ama ruuxamaha meel kale oo tareenka ka mid a Maysun waxay u dhawaanaysaa wiil la yidhaahdo Huang kaasoo keligiis safraya oo ku sawiraya buuggiisa sawirka wiilku waxa uu sheegay kaaliyaha inay hooyadiis ku sugayso istaaga xiga ama stationka xiga markii Maysun ay eegtay buugga sawirka waxay ogaatay in Huang uu sawirayo rakaab gaar ah oo aan tareenka saarnayn laakiin kahor inta aysan si dhow eegin wiilku wuxuu ka dafay buuggii wuxuuna isku dayay inuu burburiyo taasoo ku qasabtay Maysun inay ka tagto meesha wax yar kadib waxay bilaabaysaa inay aragto waxyaabo la yaab leh oo tareenka hareerihiisa tareenkii wuxuu bilaabaa inuu isku bedelo tareen duuga oo madow iyadoo caaradu ay meel walba ka surmayso waxay sidoo kale bilaabaysaa inay aragto muuqaalo kooban oo ah ruuxamadii dadkii ku dhintay shilka 15 sano ka hor laakiin si lama filaan ah wax walba waxay ugu noqonayaan sidii caadiga ah intaas kadib Maysun waxay aragtaa kaaliya tareen oo aan la aqoonin waxayna u raacdaa qolka ku xiga inta ay ku jirtay hawshaas waxay ku turanturoonaysaa lukeeda laakiin markii ay dhacday Maysun waxay isku arkaysaa isla tareenkii hore ee duuga ahaa taasoo rakaabkii saarnaana ay isbedeleen markay dib u eegtay waxay aragtaa muuqaalo naxdin leh oo ninta mudhaadheer leh kaasoo isla markiiba soo weeraraya iyada Maysun waxay u dhawaaqdaa
si naxdin leh waxayna isku ururisaa kursiga rakaabka laakiin jawigu si degdeg ah ayuu ugu noqonayaa mid caadi ah oo waxay arkaysaa iyadoo joogta tareenkii hore ee rakaabkeedu saaran muuqaalkiina hadda wuxuu isu bedelayaa timo beena oo madow oo dhulka yaala Sohi oo wax kasta arkaysay ayaa soo qaadaysa timihii waxayna rakaabka weydiinaysaa inay iyagu leeyihiin in muddo ah qofna wax ma odhan laakiin isla markaas mid ka mid a gabdhihii dugsiga ee kibirka badnaa ayaa been sheegtay oo tidhi anaa iskale timihiina way soo qaadatay markii dambe Mason waxa uu yeedhay kormeeraha shaqaalaha oo ku canaananaya inay cabsi gelisay rakaabka laakiin ka hor intayna arrintu ka sii darin kormeeraha tareenka Chinyu ayaa imaanaya xubno ku qancaya inuu u tanaasulo Mason maadaama ay tahay maalinteedii ugu horreysay ee shaqada tan kadib muuqaalka xiga waxaana la geenayaa tareenka labaad lamaanihii raacay tareenkii 12 habeenimo weli way saaran yihiin xaaska Jomi aad ayay u baqaysaa maadaama uusan jirin qof tareenka la saaran iyaga mooye laakiin markii Chinyu uu hareeraha eego wuxuu arkaa Professor Kim oo wax bari jiray jaamacadda markaas ayuu salaamayaa professorka kaasoo sita boorso filimku markaas dib ugu noqonaya tareenkii hore gabadhii beenta ka sheegtay timaha beenta ee tidhi aniga iskalan waxay aadaysaa mashquusha waxayna isku dayaysaa inay xidhato laakiin si lama filaan waxay dareemaysaa sida qof qabanaya qoorteeda markii gabadhu isku dayday inay hareeraha eegto timihii waxay ku duumiyaan qoorteeda waana caytiyeen ilaa ay ka dhimato isla markaas tareenku wuxuu istaagayaa saldhigga Maysonna waxay daaqada ka arkaysaa wiilkii yaraa ee Huang oo tareenka ka tegaya iyadoo ka baqaysa inuu lumo waxay si degdeg ah u raacdaa banaanka laakiin mar hore ayuu baxay oo lama arkayo Mayson markaas waxay go'aansataa inay tareenka ku laabato laakiin si lama filaan waxay u aragtaa aabaheed oo fadhiya mid ka mid a kuraasta rakaabka weyna argagaxda nasiib wanaag Chinyu ayaa xasuusinaya in tareenku baxayo taasoo keentay in Mason ay wiilkeeda dib ugu hesho ay si degdeg ah tareenka u gasho ka kale haweeney ayaa musqusha u galaysay inay sigaar cabto waxay u muuqataa inay xaalad xun ku jirto maadaama saaxiibkeedu tareenka ka tegay istaagii ugu dambeeyay uu tareenku istaagay isagoo ka tegay iyada kaligeed isla markaas nalka ayaa bilaabay inuu demdemo isla markaas ruux ayaa si lama filaan u soo weeraraya filimka warkaas wuxuu noo qaadaya tareenkii labaad halkaasoo Professor Kim uu la hadlayo qof rakaabku waa qof kale oo aan ahayn Mason aabaheed kaasoo tusaya sanduuq muusi oo qorshaysan inuu siiyey gabadhiisa dhanka kale professorku wuxuu sharaxayaa inuu u socdo Yasu suu gudbiyo cilmi baaris taasoo ku dhexta boorsadiisa waqtigii waxaan ogaanaynaa in lamaanahani ay raaceen tareen jiliya ama ruux kale oo shil galay 15 sano ka hor waxaa intaas dheer professorka iyo Mason aabaheed waa ruuxamo oo aan weli ogaanin inay dhab ahaantii dhimanayaan dib ugu laabo tareenkii hore Chinyu iyo Mason waxay helayaan meydka haweeneydii musqusha u gashay inay sigaarka u cabto meydka wuxuu muuqdaa mid haweeneydu u dhimatay cabsi awgeed Chinyu wuxuu si degdeg ah isku dayayaa inuu ogeysiiyo xafiiska dhexe halka Mason la soo qaadaysa taleefankii haweeneyda dhimatay waxay ka helaysaa dhowr fariimood oo aan la akhrin oo ka yimid xaaxiibkeed kuwaasoo u sheegaya inay tareenka si degdeg ah uga degto sida u muuqata wuxuu arkay ruuxaano tareenka saaran kadib markii uu ka tegay Mason oo naxsan ayaa ka tegaysa meydkii oo dibadda u soo baxaysa si lama filaan ah tareenku wuxuu markaa bilaabaa inuu isku bedelo midowga Mason waxay aragtaa sida kaaliyihii hore ee aan la aqoon taasoo u sheegaysa inay qalad samaysay markii ay tareenkan ka shaqaynaysay kaaliyihii ayaa markaas u sheegaysa Mason oo jahawareersan sidoo kalena welwelsan inay dhammaantood dhimanayaan Mason oo aad u dhibaataysan ayaa bilaabaysa inay ku qaylisa kaaliyaha laakiin dhab ahaantii waxay soo baxaysaa inay ku qaylinaysa kormeerada sare intaa kadib Mason dhulka ayay ku dhacaysa iyadoo miir daboolmaysa inta ay miir daboolnay waxay aragtaa xasuusto halkaasoo shaaca ka qaada in kaaliyihii aan la aqoon ay ka shaqaynaysay tareenkii shilka galay 15 sano ka hor magaceedu wuxuu ahaa Chuan Chi-soo intii ay shaqada ku jirtayna waxay si kalada u laaday dhala suna iyadoo gebi ahaanba burburisay laakiin kahor intaan wax badan ogaanin Mason miirkeeda ayay dib u helaysaa markii dambe waxay kala hadashaa Chinyu waxyaabihii ay aragtay iyo riyooyinkeedii laakiin ninkii waa uu jahawareersan yahay uma fahmin waxaas Mason waxay markaas go'aansataa inay caawimaad weydiisato Sohe oo ah qof jinniyada arki kara markay labadooda sheekaysteen Sohe waxay shaaca ka qaaday inay iyaduna dareemayso jawi la yaab leh tan iyo markii ay tareenku istaagay saldhigii u dambeeyey labadoodu waxay aadeen musqusha halkaasoo uu yaallo meydka haweeneydii dhimatay Sohe waxay isku dayday inay u dhawaato meydka laakiin waxay bilaabaysaa inay dareento cabsi sidii iyadoo wax u diidan yihiin inay u dhawaato meydka dhanka kale waxaan ku aragnaa Haichu iyo saaxiibkeed waa isla lamaanihii aan ku arkayna bilowga filimka kuwaasoo u socda saa u galaan bishii malabka sheekadooda waxaynu ku baranaynaa in Haichu ay tahay isla gabadhii yaray ee ka mid ahayd labadii carruurta ahaa ee ka badbaaday shilkii 15 sano ka hor dhacay dhanka kale Sohi waxay ogaanaysaa wargeysyo dhowr ah oo ah in Huang wiilkii yaraa ee Mason ay isku dayday inay raadiso kadib markii uu kaligiis tegay uu isna dhintay 15 sano ka hor waxaynu ogaanaynaa in inta badan rakaabka ay Mason u adeegayso ay yihiin ruuxamo ka yimid shilkii naxdinta la dhinaca kale ee tareenka mid ka mid a saaxiibada Sohe waxaa dilay ruuxaantii kaaliyaha ahayd ee Chinso in muddo kadib markii Mason ay aaday inay Sohe hubiso waxay ogaatay in gabadha ay hadda dhulka ugu dhacday iyadoo miir daboolan si lama filaan ah qof ayaa tawri ku muday kahor intaanay Sohe nafteeda u dambasa bixin waxay si daciif ah u sheegaysaa in inta badan rakaabka tareenku ay yihiin ruuxa ama ka yimid waayihii hore ka mid ahayd Haichu iyo saaxiibkeed kuwaasoo ay ku dhex jiraan ruuxamadii labadii carruur ahaa ee ku jiray shilka tareenka iyo waalidkood
qaarkood 15 sano ka hor waxayna damacsan yihiin inay tareenka burburiyaan. Waxaa intaas dheer qaybta ugu jahwareerka badan ayaa in ruuxamaha laftoodu aysan ogeyn inay dhiman doonaan mar dhow, sidaas darteed waxay tareenka ugu safrayaan sidii rakaab caadiya. Markii ay tan maqashay, Mason waxaa isla markiiba u dhaqaaqaysaa inay wajahdo lamaanaha, laakiin ka hor intaysan u sharaxin waxba, Haiju saaxiibkeeda ayaa gadaaltooda kaga muday. Mason waxay dhulka ugu dhacaysaa iyadoo miir daboolo. Dhanka kale, Jinyu ma awoodo inuu tareenka joojiyo saldhigga sidii loogu talagalay, wuxuu noqonayaa mid jahawareersan. Rakaabkiina waxay bilaabaan inay walwalaan meel kale. Markii Mason ay miirkeeda dib u heshay, waxay aragtay aabaheed oo agteeda jooga. Ruuxaantii aabaheed wuxuu ula hadlaa si uu u dejiyo, wuxuuna u sheegay in tareenkoodu uu dhici doono tareen labaad. Shilkaas kadib dhammaan ruuxaanadu waxay ogaan doonaan inay mar hore soo dhinteen. Caadada yaab kale ee ugu dambaysana waa inay joogsan doonaan, isla markaasna Jinyu ayaa u dhowaanaya, wuxuuna isu diyaarinaya inuu u kaxeeyo meel ammaan ah. Si lama filaan ah, nalka ayaa go'aya. Qolkii ay ku jireen wuxuu noqonayaa mid duug ah oo madow. Waxay arkaan dhiig ka soo baxaya dhulka hoostiisa, halkaasna waxaa kasoo gurguranaya Jinso oo naxdin leh. Si kastaba ha ahaatee, markii ay isku dayday inay gasho Mason, Jinyu ayaa soo baxaya, wuxuuna u sheegayaa inuu mar walba la jiri doono. Halkan waxaan ku ogaanaynaa in Jinyu iyo Jinsok ay isjeclaan jireen ka hor inta aysan kaaliyuhu shilka ku dhiman. Ruuxdii ayaa markaas ka baxaysa Mason, waxaana si tartiiba u qabsanaysaa gacmaha saaxiibkeedii hore. Dhanka kale, nalka ayaa ka go'aya qolalka qaar. Muraayadda ayaa bilaabaysa inay kusoo dhacaan rakaabka. Ruuxaamihiina waxay bilaabaan inay ogaadaan inay ku jiraan jir kale. Mason waxay aadaysaa qolka kantaroolka, halkaasoo ay ka helayso Haiju iyo saaxiibkeed. Lamaanuhu waxay dilay kabtankii, waxayna bedeleen jihadii tareenka si tareenku uga dambayntii ugu dhaco mid kale, isagoo dilay qofka soo saaran. Mason waxay isku dayaysaa inay ka dhacdhicisa Haiju in ruuxaamuhu ku jiraan, sidaas darteedna waxay bilaabaysaa inay aragto aragtiyo kale. Haiju waxay aragtay 15 sano ka hor iyada iyo qoyskeedu ay saarnaayeen tareen. Waxaa loo maleynayay inay aadeen xeebta si ay ugu soo baashaalaan, laakiin dhab ahaantii aabbuhu wuxuu qorsheynayay inuu dhammaantood ku dilo Som. Si kastaba ha ahaatee, qorshihii waa uu fashilmay marka caliyihii tareenku oo ahaa Jinsok ay si lama filaan u laaday oo ay burburisay dhaladii sunta ahayd. Dhaladii sunta ku jirtay isagoo cadhaysan, aabbuhu wuxuu kaaliyihii u jiiday qolka kantaroolka, uu dilay iyadiyo kabtankii, wuxuuna tareenkii saaray jid uu ka soo socdo tareen kale oo ay isu dhaceen. Tani waa waxa sababay burburkii naxdinta lahaa ee 15 sano ka hor. Dib ugu soo noqo hadda, Haiju saaxiibkeed wuxuu madaxa Mason dhowr jeer ugu garaacay daaqadda, taasoo keentay inay dhacdo. Laakiin si ka duwan isaga, Haiju waxay dib ugu noqonaysaa sidii gabadhii yareed 15 sano ka hor. Muuqaalka xiga, ruuxdii Mason aabaheed ayaa gelaya qolka kantaroolka, wuxuuna tareenka ka weecinaya khatarta, halka Haiju saaxiibkeedna uu dib ugu noqonayo sidii uu ahaa markii hore, uuna bilaabay inuu ku tiirsado walaashiis. wax yar kadib markii labadii tareen, kii caadiga ahaa iyo kii jinniyadu ku jireen ay kala baxaan, wax walbaana waxay bilaabeen inay caadi kusoo noqdaan tareenkii asalka ahaa oo kale. ruuxaamihii waxay bilaabaan inay baaba'aan, qolalkii duuga ahaa waxay dib ugu noqdaan sidii caadiga ahayd. rakaabkii baqayeyna waxay bilaabaan inay kasoo baxaan meelihii ay ku dhuumanayeen. qolka kantaroolka, Mason waxa uu yimi aabaheed isagoo ku leh dhowaan waxaan isku arki doonaa jannada. iyadoo intaas leh waxay u dhimanaysaa dhaawacyadii madaxa kasoo gaadhay. isla waqtigaas tareenku ugu dambeyntii wuu istaagayaa. waa maalin rakaabkii wareersanaana way ka degeen tareenkii. muuqaalka ugu dambeeya ee filimku wuxuu muujinayaa inay tahay habeen kale. tareenkii Yusuna uu soo gaadhay saldhigga Seoul safarkiisii ugu dambeeyey. waxaan aragnaa Mason oo taagan barxadda saldhigga, iyaduna mar kale waa kaaliye tareen oo saaran tareenka safarkiisa aan caadiga ahayn. filimkeennu halkaas ayuu ku dhammaanaya. haddii aad halkan soo gaadhay, saaxiib leeg saar muuqaalka, sidoo kale soo daawo filimaanta badan ee aan soo dhignay janaalkeena. mahadsanid.